بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاذ جوجتان با الله أود لدمانتين waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronavirus iyo cudurro kaleba waa maalinimo isniin ah 14ka bisha December 2020 cudurka coronavirus waxa uu yahay mid ka jira guud ahaan dunida kaas oo si aad ah saameyn ugu yeelanaya dalal badan oo iminka la arkayo mawjada labaad inay aad iyo aad dadka u taabanayso dhinaca kalena la bilaabay meelaha qaar talaaladii dhinaca kalena la filayo maalmaha soo socda in meelo badan talaalada laga ogolaado waddanka Jarmalka hadaynu ku bilowno waa reer Yurub waa waddan si aad iyo aad ula tacaalay ugana hortagay mawjadii koowaad ee sanadka horaantiisii ee cudurka coronavirus-ka kana mid ah wadamada farakutiriska ee lagu amaanay qaabka iyo sidii u wajaheen marka la fiiriyo cudurkan ka hortagiisa iska ilaalintiisa baaritaankiisa iyo guud ahaanba arrimo badan oo ku saabsan horumarinta caafimaadkooda waa Jarmalka laakiin mawjada labaad ee iminka ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay ahayd mid tiro badan oo Jarmal la arkayay inay aad iyo aad cudurka u soo ridinayo dhimashadooda aad u badnayd mar haddii maalin walba dad ka badan ilaa iyo 20,000 laga arkayo cudurka dadka dhintana mararka qaar 400 500 ilaa 600 oo ruux ay gaarayeen waddanka Jarmalka ra'iisul wasaaradda dalka Jarmalka ayaa waxay leedahay eedda waxaan dusha uga tuurayaa dadka iyagu ka tukaamaysanaya goobaha kala duwan oo aan markaa is ilaalinaynin oo aan feejigneen awaamirtan aan qaadanaynin iyadoo ugu dambeystii la sheegay oo ay isku raaceen maamulayaasha gobolada ee federaalka Jarmalka iyo ra'iisul wasaaradda Angela Merkel in xilliga Christmaska si aad iyo aad loo xanibo guud ahaan dalka Jarmalka si looga fogaado aafo xoog leh oo dheeraad ah oo markaa Jarmalka ku timaada arrintan iyada ayaa waxay daba socotaa iyadoo bilihii ugu dambeeyay baararka restaurantiyada iyo kafeeyada dalka Jarmalka ay xiraayeen iminkana dadku ay filayeen inay noqon doonto bishan marka lagu jiro oo Christmas la gaaro in la qafiifin doono inaanay ahayn oo marka aad loo adkeyn doono sida ay ka dhawaajiyeen 16 bisha December marka laga bilaabo ilaa 10 bisha January 2021 waddanka Jarmalka ayaa 24 saac ugu dambeeyay waxaa laga arkay 20,200 oo ruux oo cudurku uu ku dhacay iyo 321 ruux oo u dhimatay taasoo markaas tirada guud ee Jarmalka cudurku uu soo rito ku dhacay ka dhigaysa ilaa iyo 1,300,000 oo ruux dadka uga dhintay Jarmalka cudurka guud ahaan 22,787 ninka isagu wasiirka ah xagga arrimaha dhaqaalaha ee waddanka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in gacan la siiyo oo marka la taageero qoliyaha iyagu ganacsatada ah ee dhibaatadu ka soo gaartay cudurka coronavirus-ka isagoo waliba magac dhabay ama carab dhabay ilaa iyo 500,000 oo euro in la siinayo bil walba dadkaasi gaar ahaan kuwa iyagu mutaysta Jarmalka dadaalo xoog leh ayaa ka socda si markaasi looga hortago dhibaatada iyo aafada iminka ay arkayaan oo ah mid aan qumanayn marka la fiiriyo guud ahaanba heerka ay ka joogaan cudurka coronavirus-ka iyo dhamaadka sanadka 2020 waddanka Talyaaniga oo kamid ah wadamadii sida aadka u taabtay cudurka dhibaatada xoog leh ee aafadana uu gaarsiiyay horaantii sanadkan iyo mawjadii koobaad ayaa bila ka nastay kadib laakiin arrinka uu ku soo laabtay dalkaasi Talyaaniga oo tiro badan cudurku uu soo ridanayo dad badan ay uga dhimanayeen maalmihii ugu dambeeyay arrintan ayaa waxa dhinaca kale Talyaanigu isu diyaarinaya inuu bilaabo talaalada la ogolaanayo taasoo ay u arkaan inay wax weyn ka tari doonto guud ahaanba dhibaatada xoog leh ee ka jirtay waddanka Talyaaniga meelo badan oo Talyaaniga kamid ah ayaa la xanibay bilihii ugu dambeeyay oo ay kamid yihiin dhinaca gobolka Lombardy ee waqooyiga oo Milano ay kamid tahay oo la arkayo xaaladdu inaanay wanaagsanayn mawjadii koobaadna si aad ay u aafeysay dhibaato xoog leh ay u geysatay Talyaaniga marka la fiiriyo 24 saac ugu dambeeyay tirada guud ee dhimashadu waxa ay kor u dhaaftay 64,685 taasoo markaas ka dhigaysa UK inay Talyaanigu ka kormareen oo Talyaanigu uu markaas waddanka shanaad ugu dhimasho badan adduunka u noqday marka laga yimaado waddanka Mareykanka waddanka Brazil waddanka India iyo waddanka Mexico oo Talyaanigu dalka shanaad ee xagga dhimashada UK-na ay markaas 6 u degtay guud ahaan cabsi xoog leh iyo walwal ayaa ka jira wadamada reer Yurub intooda badan taasoo ah dhibaato xoog leh oo laga arkay cudurka mawjadiisa labaad marka daba la fiiriyo waddanka lagu magacaabo Holland oo kamid ah wadamada reer Yurub oo mawjadii koowaad dhibaato xoog leh aan arkin ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa laga arkayay xaaladan wanaagsaneyn iyo tirada soo ridashada iyo dhimashada oo badan 24 saac ugu dambeeyay waddanka Holland ilaa iyo 10,000 oo ruux ayaa laga arkay taasina waxa ay keentay maamulayaasha dalku inay digniin xoog leh soo saaraan oo ay dhici karto in aad loo sii xanibo dalka iyadoo horena xanibaad ay u jireen oo meelaha qaar marka ay xiraayeen waxaa si aad loogu digaya dadka dukaamaysanaya ciida Christmaska isu diyaarinaya dalka Holland oo loo sheegay inay ka fogaadaan suuqyada waaweyn ee la isugu yimaado baaca mushtarka gaar ahaan meelaha laga dukaamaysto ee caanka ah ee ku kala yaala sida magaalada Amsterdam iyo magaalada kale ee Hague arrintan ayaa dadka waxa lagu baraarujiyay xilliyada ay wax iibsanayaan inay noqdaan xilliyo ay u arkaan dadku inay goobaha ku yar yihiin laakiin haddii la isku qamaamo dhibaato xoog leh ay dhici karto waddanka Holland markaas xanibaad cusub oo degdeg la saari karo
waddanka Switzerland oo ka mid ah wadamada reer Yurub laakiin aan horey looga sheegin dhibaato xoog leh ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga arkayay arrintu inay carcarsan tahay gaar ahaan magaalooyin badan oo waaweyn oo ku yaala waddanka Switzerland 10 isbitaal oo waaweyn oo Switzerland ku taala ayaa warqad wadajira waxay u qoreen wasiirkooda caafimaadka Alain Berset aanay u sheegeen xaaladdu inaanay wanaagsanayn isbitaalladaas 10ka gaar ahaan goobaha dadka lagu hayo xaaladahooda aanay wanaagsanayn taasoo ay sheegeen inay aad u buux dhaafiyeen oo loo baahan yahay in wax laga qabto magaalooyinka Geneva, Berna, Zurich, Basel, Lausanne ayaa la sheegay inay yihiin meelaha sida aadka looga dayranayo isbitaallada waaweyn ee ku yaala iyadoo dhinaca kalena la sheegay cadaadis xoog leh iyo culays inuu saaran yahay kalkaaliyayaasha caafimaad ee dalka Switzerland isbitaalladuna warqadooda ay ku sheegeen haddaan tallaabo degdeg la qaadan arrinku inuu noqonayo inay isbitaalladaasi buux dhaafaan kadibna dadka dibadda ee markaa laga arki karayo haddii la fiiriyo waddanka UK oo ka mid ah wadamada ku yaala reer Yurub ayaa qolyahooda caafimaadka NHS waxay ka digayaan xilliga ciidda Christmaska dadku inay islaaliyaan ay isku qamaamin oo loo baahan yahay inay kala fogaadaan isla markaasina ciidooda ay ciidaan waxay sheegeen qolyaha caafimaadku in loo baahan yahay in la caawiyo qolyaha caafimaadka taasoo lagu caawi karayo dadku inay is-ilaaliyaan oo ay feejignaadaan si isbitaalladu markaa aanay u buuxsamin UK waxay ka mid tahay meelaha laga arkayay waqtiyadii ugu dambeeyay in xanibaado lagu soo rogayay isdabajooga taasoo la eegayo dib-u-eegis lagu sameynayo 16 bisha oo ah maalinta Arbacada ee soo socota marka daba la fiiriyo UK 24 saac ugu dambeeyay dadka waxaa laga arkay cudurka 18447 iyo weliba 144 ruux oo dhimatay marka la barbar dhigo maalintii shalay oo axada maalintii sabtidii ayaa ka tiro badneyd sabtidii cudurku dadka uu soo ritay 12502 dadka ka dhintay sabtidii UK 519 shalay oo 144 marka laga gooyo tirada dhimashada UK 48 saac waxay hoos u dhacday 375 ruux guud ahaan UK dadka ka dhintay waa 64170 tirada guud ee UK cudurku uu soo ritana waxaa lagu sheegay 1,849,403 ruux marka daba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada xaalkeedu ma wanaagsana oo tiro aad u fara badan ayuu cudurku soo ritay tiro fara badanna way ka badbaadeen kuwo badanina way uga dhinteen Mareykanka ayaa la filayaa maalinka maanta ah in la bilaabo dhinaca tallaalka marka la fiiriyo kambaniyada ama shirkadaha lagu kala magacaabo Pfizer iyo BioNTech kuwaasi oo la ogolaaday waxaa la filayaa goobo kala duwan in lagu bilaabo maanta oo Isniina bari oo Talaada iyo Arbacada iyadoo la filayo goobahaas inay ku baahsan yihiin guud ahaanba kontanka gobol ee waddanka Mareykanka iyadoo Mareykanka xarku aanu qumanayn oo dib xoog leh uu jiro 16,200,000 ruux dadka uu ku dhacay cudurka ay kor u dhaafeen 300,000 oo ruuxna tiradu ay madaxa la gashay marka la fiiriyo Ameerikaanka guud ahaanba dadka cudurka uga dhintay adduunyada oo dhan marka la fiiriyo tiro aad u fara badan ayaa cudurku uu ku dhacay oo ah ilaa iyo dawa adduunka oo dhan u fiirso ilaa iyo 70 milyan oo ruux laakiin waxa uu ku dhaco ka caafimaaday ilaa iyo 47 milyan oo ruux waxaan ka kicin oo cudurka coronavirus markuu ku dhacay u dhintay adduunka oo dhan sida isbitaalladu sheegayaan 1 milyan iyo weliba 620,000 oo ruux guud ahaanba adduunyadu waxay filaysaa maalmaha soo socda in la bilaabo lana ogolaado tallaalada kala duwan ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech Moderna AstraZeneca Oxford Sputnik iyo weliba shirkado kale oo iyagu diyaariyay tallaalada dunida waxaa daba laga warsugayaa iyadoo wadamo badan ay isu diyaarinayaan xilliga Christmaska iyo inay isbooqdaan booqashadana aad looga cabsi qabo tallaaladiina la bilaabayo si arrintaasi ay isu qabato marka daba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronavirus-ka waxaa fududeeya shirkadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa shirkadda lagu magacaabo Parcel Hosti oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528277 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada aan badino nadaafadana aan ku dadaalno waa
maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadanno ka hortagga coronavirus maasha allah